kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee colaadda ka aloosan gobolka Awdal. Qodobada aan idinku hayno waxaa ka mid ah tirada dadka dhaawaca ah ee la soo gaarsiiyay magaalada Boorama oo korodhay, amarka cusub ee ciidanka militariga Somaliland duldhigay jiidaha dagaalka ee gobolka Awdal, iyo xaaladda goobihii ay dagaaladu ka dhaceen 3 maalmood ee la soo dhaafay. hal qof oo habeenkii xalay ku dhaawacmay rasaastii ka dhacday magaalada Saylac ayaa saaka la soo gaarsiiyay magaalada Boorama oo lagu dabiibayo. muwaadinkani ayaa dhaawacu ka soo gaaray mid ka mid ah labada lugood oo rasaastu ay laf ka jabisay. xalay markii ay saacadda Saylac ahayd abaara 12 habeenimo ayaa dhowr xabo oo rasaas ah laga maqlay magaalada gudaheeda, balse ay markiiba istaagtay sida ay noo sheegeen qaar ka mid ah dadweynaha ku sugan magaalada Saylac oo aanu la xiriirnay. ciidanka ammaanka ee magaalada Saylac ayaa weli ku guda jira baaritaan ay ku sameynayaan dhacdadii xalay oo aan ilaa iyo hadda wax faahfaahin laga bixinin. muwaadinkani ayaa noqonaya qofkii shanaad ee dhaawac ah ee la keenay magaalada Boorama 3 maalmood ee ugu dambeysay ee uu dagaalku ka socday gobolka Awdal, kuwaasi oo 3 ka mid ah lagu dabiibayo isbitaalka Al-Xayaat halka labada kalena lagu dabiibayo isbitaalka Adal. sidoo kale maanta waxa degan xaaladda guud ee deegaanadii ay maalmahan ka dhaceen dagaallo ay ku dhinteen in ka badan 10 qof inta la og yahay. geesta kale, howlgal qorshaysan oo ay fuliyeen ciidanka Somaliland ee ku sugan jiidaha uu dagaalku ka dhacay ayay ku soo qabteen gaadiid ay isticmaalayeen labada dhinac ee dagaalamay, sida uu sheegay taliyaha howlgelinta u qaabilsan ciidanka militariga Somaliland Mustafa Cabdi Xasan oo shalay gelinkii dambe soo bandhigay gawaaridaasi. ciidankani ayaa dib u soo cusboonaysiiyay awaamir hore ay Somaliland u duldhigtay dadka deegaanadaasi, waxaana sheegeen in gacanta lagu soo dhigi doono ciddii dambe ee lagu arko gaadiid iyo hub ee ku sugan jiidaha gobolka Awdal iyo deegaanada xeebta. balse qaar ka mid ah cuqaasha dhaqanka ee deegaanka ayaa ka biyadiiday gaadiidka ay ciidanku soo qabteen. waa kan Caaqil Maxamuud Sheekh Ismaaciil oo ka hadlay arrintaasi. baabuurtii cashuurayd ee waddanka laga lahaa in la qabsanayo ciidankii qabsanayaan oo ay qaadanayaan oo ay haystaanba imika. waxa kaloo ay soo gelinayaan baabuur iyo hub aan cashuurayn waddankana laga lahayn oo ka dhex dagaalamaya halkan oo la og yahay, Somalilandna ay og tahay. weli waxay maskaxdeedu keeni kar leedahay waxa ay isku og yihiin Somaliland iyo dadkaa ku soo duulaya. marka lana soo doonteen iska waabino ciidamo yaac ayaana soo dhexgelaya. ugu dambeyn, haddii ciidamadu ay sii wadaan howlgallada noocani oo kale ah, xal ma u noqon kartaa xaaladda gobolka iyo dagaalka ka aloosan gobolka Awdal? halkani waa Awdal TV, kala soco wararka caalamka iyo dhacdooyinkii ugu dambeeyay.